geed garan waaya bartamihiisa habeen madow oo ay dhaxani dhacayso ayaa oohintiisa laga maqlay wiil la garan waayay oo toddobaadkii ugu horreeyay noloshiisa jira khadar yare oo noqday ilmo yaroo la soo tuuray ayay khadri la haaday hooyana u noqotay iyadoo ka mid ahay dadkii xaafadda ee soo gurmaday geed garan waaya ka dhaxlay walaal in ayaan dhalay yimi sagaalkii habeenimo ahayd hooyay halkan ilmo yar baa yaala geedkii garan waaya soo ku dhex jiro dhiigu saa uga dacayo meel walbana ku midsan yahay ilaa madaxa ilaa caloosha ilaa xina meel walba qodxda saa uga jirto bas saacad iyo barka furfureen isagoo qaaqda haya dhaxan xun ay dhacayso ka bacdi waan ka soo qaadnay waan soo saaray gurigan keenay wuxuu horeeyay aan ku qabtay naaskayga jir wanafku galiyay sidii baan u hayay sidii baan u koriyay horta 10 bilood buu jiray taimka biladina 12 bilood ku noqonaysa jeclaa subaxii station geeyay waa la iga rabuuriyay waa la qaaday maxkamadan geynay waa la rabuuriyay waan ka soo qaadnay dhakhtarka weyn baa la mariyay caafimaadkiisa yara baarbaareen way soo qaatay sidii ma halkan ku keenay waxa uu leeyahay qodobada maxkamadda ma hayn karaysa waxaan ku leeyahay waa ilaahay darto ma hayn karaya ilmo taayir labada sano jirtay shaqaysay naaskii baan midna sigsiinay midna iyada ilmaha uu qaawana allahumma la bi'usi ilaahay caloosh hooyada ka soo saaray way qaawaneen waxay ku dhaxtay geed garan waaya soo soo dhex jiro uu fooray labada indhood budooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu ku hagaajiyay kartoon ku dhex jira geedka ay budo u saarayda intiisa kala saasay foortay ay wada qodaxda u wada haysay oo saa ugu fooray ka bacdi saacad baan ku furfurayno ka soo saarnay isagoo sidii qaawan xijaabkayga ma saa ku soo laabay ilaa guriga waan ku keenay subaxii dambe waxa maray dariska qaaraha halka maray waxay dhayn labadiisii mar waxay keenan diric iyo shaad iyo surwaal iyo xafaayad xunna ka bacdi waxay meeshii laga helay meelin kaaga jirtaan maxkamadda kulmo qaba wali mariya guriga laga inanta bay usan waxay ku khadray ilmaha yar xalay heshay mariihiisa waxaan ka helay geedkii la dhigay rukunkii gidaarkii la dhigay ee garan waagaha dabadiisa dambe ay farabadan abmaal oo ciis marka anagu aan ugu tagnay ay farabadan ba ciise saddexdeena midba eeriyeen dadkii ku soo yaacay ayadii way wadeeriyeen ayadu meel ka gashay way siiciyeen ilmaha meel ka galaan bay waayeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahayna kuma sababin eedeynta ilaahay ka maaganayn anaga ilaahay nagu soo beero haye geedku wuxuu lahaa geed wada qodaxa oo qodaxda ku soo taagtaagantay oo wada qodaxa dhexdiisii ay saa ugu ritay oo cufa oo wada qodax badan saa ugu soo taagantay meel kasta ka mid qodaxda aniga laftiga markaan soo saaray laba laamood bas saasi ka cadaaday laan kale soo cadaaday mid ka sareysan soo cadaaday halkaas uu saa ugu jiray madax waxaan ugu tagnay iyaga oo foorara sida loogu riday foorar oo ay madaxa laba laamood dhexdood oo kula jiro cidhiidha meel cidhiidho mugdiya oo uu qaylinayo meel walba qodxaantu ay ka saarantay oo halka qoorta ugu xuntu ku dareeysay geedka oo labada laamood xoog u haystaan inta dambana ay meel walba qodxdu inta haysato oo firig leeyahay oo ilmaha qaaqda hayo oo aad iyo aad u dhibaataysan oo du sida ay haysato si argagixisale oo naxdin oo murugo leh aan anigayga ka saarayay ee ka furfuray aan murugooday runtii aan ka ooyay oo hin aad iyo murugo aad iyo aad u xun aan ka ooyay ilmaha yar catibaada iyo murugada iyo ilmaha saylaantu haysatay si oo doogu jiro si argagixisale aanad moodin hooyo dhashay ama qof islaami inuu soo qaado oo si ugu ridaan aan la yaabay ayaan kaga saar saacad iyo badh ugu yaraan qodaxda waan ka furfuray qaarkood intu firig lahaabay ayay walaal ku jabeen ay aad ugu jabeen meel walba oo madaxa ka mid yahay sidii ayaan ku soo furfuray qaar waxaan kaga soo saaray ilkahayga ilaahay baa runtii jecel ilkahayga ayaan ku dhaadheeraay oo ka jiibsan kari waayay labada margi kaga jiray ayaan ilkahayga kaga soo dhiftay markaasaan meeshii marinayay markaan ka soo saaray afash habeenkii kiniin sir baan u diray meel walba dhiig hawda ayaan ka saarayay biyo milix la diiriyay waan ku meeray maraan ku duubay xundurtu way soo qoyneed Cabdimaalik xundurtu way qoyneed markaas ay xundurtu ka dhacdo dhiig lahayd xidda xundurtu laftigeeda waan dhigi jiray xanaanada waxaan uga soo qaaday dawooyin aan ku dhayo teelu markuu tadbici jiray xundurtu ka dhacdo anagu hooyana waan garanayna ka bacdi tadbici dhakhtarka aslan markaan geeyo waxay u leeyahay ilmaha 7 days buu jiray caafimaadka waxay u leeyahay 7 days buu jiray tadbici jiray bay ilmaha waxaan mar dambe oo dadku ku buuqsan yihiin islaantuna ay ka furfurayso islaantu bidaa ka bay ahayd markii ay ka furfuraysay garawaaga ilmaha iyadu bidaa ka bay ismay dareemay qodxaantii markaa midaysay iyadu laakiin ilmaha ayay daryeelaysay ay islayd ilmaha yar ee meesha ku jira si aad u daryeesho falowgeeda qabo shalmad yar baa lala soo carro waa lagu duubay guriga la geeyay xaafaddu waxa sameysay qof masaasan loo soo carara qof marayar la soo carara qof markaa faxadabka u saara markaa qof masaasidu soo iibiyo oo keena in badan bay haayeen tuurista ilmahan yar ee lagu tuuray geedka qodxaanta leh
uma muuqato in loogu talagalay inuu sii noolaado waxaana isweydiin mudan qofka tuurayba waxa uu ahaa hooyadii mise qof kale anigu waxaan ku qiyaasay marka raygayga eega hooyo dhashay inaan halka ku ridi karo ay malaada qof ay soo dhiibtay oo faalmiyada ay ku rideen ma qofaan horta wax dhalin Cabdimaaligo way deelma hooyadii inta soo qaad halka uma qoori inay marka tuurayso laga yaabo inay ciid dhigto oo istiraadeen ma halka laga qaaday ku dhaweyso oo hortooda ama kaabadooda kala dhigto laakiin halkan qofkan ku riday qof aan hooyo ahayn ba hebeelad aqligayga markan hadda eegay isaga waaga loogu riday isa mariyaha looga saaray qofan jeeshidugo oo waxaan u arkay ilmahaas in loogu tala galay haba yaraade wax nolol halkiisa la soo marin ilmaha in markiiba la cuno oo uu dhinto oo markiiba ama bisado markii joogay barta ay burbursadaan ayadu laftigooda meel fog ka sociyay habeenimo hadday tan halka way isugu yimaadaan ayadu bisaas ba laakiin markii waxa dul joogay bisaas curiyo waaweyn oo gaajoonay aad u gaajoonay ba dul joogay oo daadhan la dhixdhigay ee loo bareeray nolol looguma tala gelin geeri mooyee ugu eheradin ba kula soo talisay laakiin gabar kaliya may dhigin ilmahan dhowr qof baa lagu dhigay meel fog la waa laga soo qaaday garanwaana bartanka waa loo dhigay waayo masaabiir buu noqdo subaxii baan ma yar u tagay masaabiir buu noqdo dhulka uu ka wada gala maxay dhahay dabeedna naagta halka ku tuurtayna waa naagan dhalino naag dhashay may dhigin baan isleeyahay may garin laakiin dumarkii imika badi waxay u badan yihiin carruurta qubaan inay markay waxyaabo qaar kood ku yimaadaan iska tuuraan ilmaha ilma de yaani aanay dadka la soo ogeysiin teesaasa imika Soomaalideenu ku badan tan oo kale waa dil ilmaha dilun bay la beegsatay lamay way dilaysay tan laakiin kuwa doonaya in la qaado karaatoon bay u soo dhigaan mariye ku soo duubaan si uun bay yiraahaan laakiin tan dil bay la beegsatay waayo toddobaad baan u seexanba ilmuhu muditaankii oo muday qadxu daryeel ilaahiya ayaa khadar lagu dayray muu waayin cuntada ay carruurtu ku koraan ee ugu muhiimsan ee ah caanaha hooyada waxaana nuujisa hooyadii khadra intaana waxa uu dheer naxariis hooyanimo oo ay u hayso 13 waa carruurta dhalay 5 baa shafeecday 4 wiil iyo 4 gabdhood baa inoo markaa inoola tawiyar 2 sano jirtay habeenka 2 sano habeenka soo bixsamay naaska maanta waxaan doonayna ka daayo ka celcelinay runtii oo saan uga guriyaan doonayo caanahay way soo gaareen gaaxdii dabtana maanta dhanba ka celin xalaana la sida ku bixsamay naas kuma siinayo sideen gaaxdii uga celinay naaska naas u darsaneen habeenkiina ilmaha yar baan helay ka bacdi subaxii baa tiri hooyo midna noonaha si midna anigays dabta sidii baan u siinay midna iyaduna mid bay shaqaysay islamid sidii la iyadu markaan ka jaray isaga u deys naxariis waxay gashay dabtina Cabdimaaligo waana ilmihii sida ilmaha oo kale aan naaska ka teen waxa jiray magaalada jooxin baa jiray wal xanuunsanay carruurtu way shumeen jadeeca ku jirtay xanuun badan oo fara badan baa ku jiray shuban baa ku jiray waan soo samray waxa silmaha naaska dhisan naasku talaba cudur 12 cudur buu ka daweeyay aad ka dhiso ilmaha soo kuga xanuunsan dadina halka dhibaato naaska dadka dhiso dhibaato weyn baa ka soo gaartay sidii baan u siinay habeenada qaar baan Cabdimaaligo wallahi waxba cunayna siin jiray naaska aan boor shir shahayro aan caaneeyo wixii isaga cabti si naaska caana uga helo maalmaha qaran wala qasacada caanayna heli jiro waqtigu iskaadka nimcada iska badnayd sidii baan inakii naaska ku siiyay alaanka waan kala samir laayna naaska ka daayo sabab horta hayra socdo ha koro hayra adkaado kolba waxay ugu soo dhacdan sidii ilmaha iga soo qleen ande ilmaha u ilaalin laasna inaan u ilaaliyo wali igma soo gaarin inaan ka xmaqa ama aan israado ma daline ka jiradaygo ilmaha naaskiisa dadku way la yaaban jaarku xigooda dumarku alaanka ma naaski bataysa wadaaba catiibe wali alaanka jaarku way la yaaban naaska u siiyay ilmaha xariis fara badan baa iga oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa Ilaahay ka soo rogay oo markasta aan xitaa kuwiga markaan baxayeen aan sagan ka tagaana jannada Cabdimaaligo waan qaado oo xambaaro waxaan ka maqnay naaska asraha min naaska u darsanaya meel haddaan u socdaalayo magaalada kale waan qaata sheekho kale haddaan tagay waan qaata Cabdimaaligo waan saray min naaska iyo u darsanaa ma aan dhibaato ka soo gaarin guriga dhexdiisa carruurta xariis fara badan baa iga إلى سبحانه وتعالى إلى هاي وابوري سامر كسكت تلتقينا نحرس رباني يا رجال يقولوا هذا وينو مسكح ذي وانا كدي قضانا صبح نيدي نحب جلينو ولا أنا لا كادي أنا المهاير المها وكل مها مواد الشيء يس المها نحرس وين بيجرت إلى سبحانه وتعالى إلى هنا يجي لحد مدوين قويس كخضر يرى هيا قويس ضيرة بس سيدا وجوه هيا كالجعيل بوحة قويس هم لا وعيه وسكر بديه waxaan ku dhahday odaygu camal ma hayo Cabdimaaligo birwad buu gaar ka dhaw iska jifaa halka ugu timaadeen maanta hornood ugu tibe halkaas iska jifaa in yarba
مصاريف تسنى خير له بالله هذا وحصاه له قلبي إلهي نوصل دماغنا كلا قبسنا meel meherada noo fraa wax camal aan weynaan haynana ma jirto ciyaalkii wax warkanin walaalkood iyo qofka la soo qaaday ilmo reer garwaa keesan ka warama geedka wallahi uu ka xanaaqan runtii waana ka muraar dacwana waa ilmaayagi hooyaday baa naaska nala siisay waa walaalkay oo kale sidii walaalkooda kale la dhaqmaan in aan jeclaynay ma jirto qofka waxa waan qaadanaya taa yar labada sano jirto way ooydaa way muraar dacwana way qalbi jirto xataa waa walaalkay qaarkood waxna ka war cabdi garwaa qaar baa nagu dhahay قاربنا ولا كنا ملميرا لهلا وجيبا أنك إحنا قرنت أنا وضم رارد العنا كنا نجاورين يبقى تبدو كلنا نقص بينا يودتكم مهلا وجيبا أقوى جبوا كش ذا أو بريبا لو عيا صادو هين كرسة إلهي بقى يقبلنا ما كنا ذا إلهي إن شاء الله وحبا قلبي يسلقوا بيرما الناس كاو تشقي وحنا كسوين إلهي وحنا أكسل الماء يفنسيو وحد إلهي من يقلك لونس مستقبل ونكسن أو ينفع كي ينفع لها يتر الله وإلهي نقدمه إن شاء الله بإذن الله كريم أنا وحنا أمين كان هلاي بان اللي الخضر إلهي سبحانه وتعالى إلهي والمقلة مركا ملكت المقلس سلام مركا نسخنا كله الخضر بان هلاي خضر بان دبتر الله بحر caruurta aan hooyooyinkood iyo aabayaashood la garanayn ayaa kala kulma bulshada dhibaatooyin nafsiyan wax u yeeli kara taas oo u baahan in bulshada lagu baraarujiyo qaabka ugu wanaagsan ee loola dhaqmo xaaladahaas oo kale dadka noocaas sida khadaro kale markay weynaadaan bulshada waxay kala kulmaan hadallo xun oo de maxaan ku dhahday khalada oo ay fahansiyeen bilaadan ku yidhahdaan dawaad hel lagu helay waa lagu korsaday saasada halkaas laga soo ilmaha marka la helo wuxuu bayoonay waa kii la helay meeshaas laga soo qaado oo waa lagu soo helay waxay oranayay yaa ku dhalay halkaad ka timi nin ayaa tahay abtirso qabiilkee baa tahay dhacdada naxdinta leh ee lagu tuuray ilmaha yargeedka qodxaanta leh habeen gudcura oo ay dhaxani dhacayso waxay ka mid tahay boqolaal dhacdo oo loogu gafo caruur aan waxba galabsan ilaaha sareeya quraankiisa wuxuu ku tilmaamayaa wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat waxana bulshada ku waajiba inaanay arrinka sida ku sii daawan oo wax laga qabto maxay galabsadeen intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa waxaan idila socodsiinayay anigoo ah cabdimaalik sheekh musoldon muuqaaladana waxaa kala qaadayay diiriye jaamac cabdiqaadir cismaan dubbad iyo siciid maxamed cabdi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu naaskiiba gudhoobad gogol ka weyde waabartibaa socdaashay socod ku weyde bas daaya qadar